Allah u naxariistay marxuumad Ruqyo Siciid Anyaale ayaa meydkeeda laga helay god lagu aasay kaasoo laga helay guri ku yaala bariga magaalada Hargeysa kadib markii muddo 7 ah la waayay taasoo ciidamada booliskuna ay ka soo saareen meydkeeda godkaasi waxaana meydkeeda la keenay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Taliyaha ciidanka booliska Somaliland Sariye Guddo Cabdilaahi Fadal Iimaan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dadkii ka dambeeyay dilka marxuumadaasi. halkan galabta waxaan soo ku yeedhay kiis aan hore ugu dhicin dalka uguba oo dhacay waxaa jirtay taariikhdu markay ahayd 24kii bishii labaad ee 2014 in saldhigga ay dad dhibanayaal report keeneen oo ay sheegeen in la waayay gabadha hadda marxuumadda oo la yiraahdo Ruqyo Siciid Anyaale kadib booliiska wuxuu galay baadhis iyo baadigoob iyo dad aan aad iyo aad halkan uga mahad celinayo oo ehelkii marxuumadda oo ciidanka booliiska gacan siinayay oo rag iyo dumar bale baaritaan dheer kadib oo dhinacyo badan leh ciidanka booliisku markii uu galay aniga oo uga mahad celinaya Ilaahay waxaanu maanta oo ay taariikhdu tahay horta intaan meydka la helin ciidanka booliisku waxay galeen hawlgal waxay gacanta ku soo dhigeen gacan ku dhiig leh Ruqyo gacan ku dhiig leh Muna Maxamed Cabdilaahi oo gacan ku dhiiglaha koobaad iyo 5 qof oo kale kuwaas oo kuwa lagu eedeynaya falkan dilka ee foosha xun ee hore aan dalka uga dhicin intaa kadib waxaanu galay baadigoobkii sidii loo heli lahaa rag iyo ruux marxuumad Ruqyo Siciid Anyaale ciidanka booliiska iyo dadweyne ehelkii oo iskaashanaya iyo dad badan oo kale reer Soomaaliland oo halkan uga mahad celinaya waxa maanta lagu guuleystay in la helo marxuumadda oo god looga qoday kadib markii la dilay laguna aasay guriga gacan ku dhiigleyda laga soo qabtay oo gurigeeda oo ku yaala xaafadda Axmed Macalin Haaruun agagaarka kaybalka dhinaciisa maxaan ku dhahaa bari waqooyi kadib halka waxa laga soo saaray meydkii marxuumadda waxaan leeyahay inna lillahi wa inna raajicuun waxaana halkan tacsi uga dirayaa ehelkii iyo ubadkii iyo saygeedii. Dilkan loo geystay marxuumadan ayaa ah mid ku cusub magaalada Hargeysa. Khalid Ibrahim Abdi, Somali Channel, Hargeysa.